aynu ka hormarnay xogo xasaasi ah oo soo baxaya ayaa muujinaya in isku day dil loo maleegayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo imika degan gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee caasimadda. xogta soo baxaysa waxay muujinaysaa in Farmaajo shirqoolka dilka ah ay ku fulin karaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo hab argoosi isku abaabulaya ama ururka Al-Shabaab iyadoo loo soo dhex marayo. ciidamada ilaalada u ah xilligan Farmaajo ayaa heegan buuxa ku jira, iyaga oo ka warqaba dhaqdhaqaaq kasta oo halis ku keeni kara amniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dadka qaar ayaa leh taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa qorshahan soo maleegi kara si uu uga aarguto 5 sano aynu ka soo gudubnay dhibaatooyinkii uu ku hayay Farmaajo mucaaradka gaar ahaan beelaha degan magaalada Muqdisho, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Hiiraan iyo Galgaduud. waxaana la soo jeedinayaa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu sameeyo digtooni aad u xoogan, islamarkaana dadka qaar ee taageerayaashiisa ah ayaaba ugu baaqay in amnigiisa si loo sugo ay madaxweynaha u wanaagsan tahay in dalka dibaddiisa waqtigiisa ugu badan uu ku qaato.